marsada dalka maxbuuti siiyey barbara mudana meeshay ku taallaa muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoo dhan marsada dalka maxbuuti siiyey barbara mudana meeshay ku taallaa muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoo dhan ماريسي هذه البنكون السلام يا ولاد عبد المحسن حي ندقوا برا في المنطقة محسن كم صبورا روح ندور يعني بقول كده أغير وفينا نفس الصوت حاش وحمريان سيدا يقول أيام شعرها هنا الدوير وولاد هذه عبد المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهله حاول آدي أدبض ما حسنتي بوغشده هنوصل بوغتي ما أنت حفيزك تكدو مرحلة بدن بيصوم مرتعولو وأنا كنت كفر حسنيا ما أنت عندها كسواركتو رونهانتي في إنجليزيا مركز روح عنها international board إمي كانوا روح عنها international board مركز مرحلة بدن بيصوم مرتي haddii in yaroo fahamkaan kaaga soo qaado marka hore dekadu may lahayn intii aan la casriyeen wiishash ku rakiban oo maraakiibta wax ka roga laakiin maanta waxay yeelatay 6 wiish oo waaweyn 3 ay yaryar yihiin oo la yiraahdo harbor mobile crane iyo 3 waaweyn oo STS ship to shore crane la yiraahdo oo ku waaweyn oo arki doonta insha Allah waxaan maleynayaa in intaas kaaga filan tahay difference ka u dhaxeeya barigii hore waxaan ku roogi jirnay wiishashka maraakiibta saaran okay maaliyo waxaan arkay mareeye ana ingiriis jooga waxaan arkay aan social media ka in la soo dhigay markabkii labaad adduunka ugu weynaa markabkii labaad ayaa bilbil ku soo xidhay miyay jirtay markabka arrinkaas uu soo xeelan ma runtii way jirtay markabkii adduunka ugu weynaa ma ahayn laakiin wuxuu ahaa markabkii ugu weynaa ee abid ku soo xidhay dekada berbera ayuu ahaa runtii 338 mitir buu ahaa waxaanu siday 10,000 oo container taasoo awood u yeelanay inaan mar walba rogno xajmiga maraakiibta iyo xaddiga uu sidaba aan ku filanahay maanta waxaan soo diyaarinaynaa inaan dalka Itoobiya defiid garayno haddii la hayda ilaa xafiiskiisii u qaabilay dekadii ikano daawasiinay imika waxaan ugu hambalyeeynaa sida daacadnimada leh iyo ay ku jirto iyo la xijceelada leh oo uga shaqeeya dekada intii imika soo wareejinayay shaqaalihiisa ugu faraxsan yihiin ayaad ka garan kartaa qofku maaragtay inuu yahay the right person for this position marka waan u hambalyeeynaa Saciid waxaan kaloo hambalyeeynaa dekada DB Wall haddaan Saciid oo in yar ku darsado inkastoo aan jeclayn ku daro berigii DB Wall dekada mashruucaas uu bilaamayay waxaan ka mid ahaan jiray xisbiga wadani ingiriiska joogay marka madaxda xisbiga wadani way nala soo xidhiidhay inaanu si kasta oo aanu mudaharaad si loo joojin lahaa aanu uga hortagi lahayn 2 cisho 2 habeen ilaa maalmood bas ayaan Saciid oo aan seexanin waan ka shaqeynay mudaharaad safaaradda Imaaraadka ee ku taala London denoomay muuqaaltii waxaan hadda imkaan runtii I feel guilty imka dambi waxaan dareemay inaan dambi galay yani nimcadan maanta aynu halkan aan maanta waxaan maanta arkay inkastoo wax weey waa markii ugu horeysay aan dekada imaado intii dekada la casreeyay yani nimcadan iyo waxaan maanta arkay iyo maalintii markaan waxaan sameynay asdinac dhigo waxaan dareemayaa guilty runtii waan u mahadnaqayaa dawladda kulmiye isaga dambeysay dawladdii hore ee mashruucan keentay iyo tii dambe dhamaystirtayba waan ugu mahadnaqayaa insha Allah waxaan rajeynayaa in dalkeena nimca ay taala runtii nabadgelyo taala xalayto 10kii habeenimo soo galay berbera habeenimo soo soconay nabadgelyada dariiqa wax allaaliye wax dhibaato ka jirta aanay jirin marka waxa way cadawga faraha badan le aan leenahayna nabadgelyadeenaas
iyo horumarka aynu maalinba maalinta ka dambaysa ku tallaabsanayno ayuu diidan yahay ayuu ka soo horjeedaa marka waxaan leeyahay maaraya aad iyo aad baad mahadsantahay waqti fiican baad siisay maanta waad mahadsantahay cawil aad baad mahadsantahay cawil muddo dheer baa suuka ay dambeysay isagoo xisbiga mucaaradka wadanaya waan jecelahay runtii inaad indhaha ku soo aragto mucaarad iyo muxaafid bad waxa weeye muwaadiniin dalkan u dhashay ayaynu nahay laakiin ilaahay mahadii mar haddaad muraayadii iska saartay mucaaradnimada oo aragtay horumarka alxamdulillahi rabbil caalamiin waan kugu soo dhawaynaynaa muwaadin kastoo reer Somaliland saasaan u soo dhawaynaynaa runtii waxaan leenahay dadkiina gacmaha isqabsada nabadgelyada ilaaliya horumar ka shaqeeya waxaanaynu ka shaqeynaynaa maaha waxaynu inagu maanta waxaanu ka shaqeynaynaa beritoole caruurteena sidoo ugu wanaagsanaataa caruurta wadamada kale Kenya Ethiopia Djibouti aynu la tartanna halkan aynu habarta ka sheekanayno inaynu iska dhaafno gacmaha isqabsano wada jirno aad baan ugu faraxsanahay fikirkii hore ee qabtay inaan maanta ka duwan yahay kan maanta feel guilty marka ma qofku laakiin waxa weeye markuu fahmo ayaa muhiim ah waxaan jecelnahay dadkii kale ee kugula jiray mucaaradnimada noocaas inaad wax u sheegto wacyi baliyanayaa xisbiga kulmiye ee aan ka tirsanahay imika isaga dambeeyay dawladii hore iyo tan imika ee horumarkaas isaga dambeeyay aad baan ugu hambaliyanayaa cusub yihiin kan aan saaranahay iyo kan kale waxa weeye wax soo iibiyay intii maariyaha cusub joogay maaraya Saciid Xasan ayaa keenay taagaas waxa weeye kuwii hore ma sha Allah hadda way dhaaqayaan marka bay soo xirayaan imika hadda loo soo sheegay fariinta loo soo sheegay marka bay soo xirayaan ma sha Allah ninkaas uu naga dheereeyay waa kalluumayste kalluunkii soo qabsanaya maanta ma sha Allah aad iyo aad markuu mahadnaqaya maarayaha waxaan leeyahay ilaahay nimcadaha inoo siyaadiyo ilaahay nimcadaha inoo siyaadiyo siiyay isaga weyna waaxida horumar balaaran baa dalka ka jira ilaahay horumarka ayaa ummad badan oo inoo cadawi ka xun tahay oo inagula dagaalamaysa